السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkaad naga daawanaysaan waa Shaafi Media Group magacaygu Shaafi Axmed Faarax Timos waa markale barnaamijkii su'aalo weydiinta dadweynaha hadaba saaxiibada galbeeda fadhiya waxaan weydiin doonaa su'aal ugu horeyn saaxiib ku soo dhawow Shaafi Media Group waan ku dhawaay saaxiibkay Mr Timos aad oo maasanta barada waxaad sheegtaa gobolada koonfureed ee dalka Soomaaliya markii ay xornimada ka qaadanayeen gumeystihii Talyaaniga 1960kii imise gobol ay ahaayeen su'aashaas waxay noqonaysaa waxay ahaayeen 5 gobol ahaayeen 5 gobol bay ahaayeen saanfila 5 gobol haye Ilyas su'aashaas su'aal la mid ah aan ku weydiinaynaa gobolada koonfureed ee dalka Soomaaliya 1960kii markii xornimada ka qaateen gumeystihii Talyaaniga imise gobol ay ahaayeen Shaafici hadda su'aashaas ku dayo waxay ahaayeen ilaa 2 gobol kale ay ahaayeen 2 gobol ay ahaayeen yaa ka soo xigtay 2 gobol ahaayeen yaa ka soo xigtay markaan su'aashaas isku dayay markaan su'aasha u fikiray maadaama way ahayd marka wax leeyahay alle 2 gobol ay ahaayeen 2 gobol ay ahaayeen haye brother waxaad sheegtaa gobolada dalka Soomaaliya ee gobolada koonfureed dalka Soomaaliya 1960kii markii xorriyadda ka qaateen gumeystihii Talyaaniga imise gobol ay ahaayeen daan su'aasha isku dayo ma nooleyn xilligaas waa 1900 ma dhahay yaada noolaanin taariikhda waxay ku taalaa meel kasta ku taalaa gobolada koonfureed ee dalkeena Soomaaliya markii ay xornimada ka qaateen 1960kii gumeystihii Talyaaniga imise gobol ay ahaayeen ka jawaab su'aashaas waxaan ku leeyahay waas moola iyo buuriniyo su'aasha daan isku dayana waa muku gambis su'aasha muku gambis barada su'aalaha noolayna ay weydiin marana noolayna igala hadashay laakiin 3 gobol ay ahaayeen hadaba saaxiibadeeda waxaan weydiiyay galbeeda fadhiya gobolada koonfureed ee dalka Soomaaliya 1960kii markii xorriyadda ka qaateen gumeystihii Talyaaniga imise gobol ay ahaayeen qayb kamid ah dhalinyarada Soomaaliyeed way ka dhagalayihiin taariikhdii soo jireenka ahayd ee dalkeena hadaba hadii aan u faa'iideeyo saaxiibaday iyo dhammaan dawadayaasha gobolada koonfureed ee dalka Soomaaliya markay qaateen xornimada 1960kii ay ka qaateen gumeystihii Ingiriiska waxay ahaayeen